cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo wafdi hogaaminaya qaybna uu ka yahay taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed ayaa maanta soo gaaray magaalada Cadaado waxaana garoonka ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sareeya gaas maxamed sheekh xasan xaamud taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo ugu horeyn la hadlay warfidiyeenka isagoo ku sugan qaybta nasiinada garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in socdaalkiisu uu ku saleysan yahay dibudhiska ciidamada booliiska socdaalkeena wuxuu qayb ka yahay sida aad socotaan booliiska Soomaaliyeed oo hadda dardar gelinaya qaabka booliiska federaalka u shaqeynayo iyo sidii loo dhisi lahaa booliiska goboleedyada oo ay runtii ilgaar aan ku hayno booliiska galmudug oo hadda aan u tababarnay ciidan aan rabno inaan soo gabagabayno goordhow wuxuu kaloo socdaalkeena intaas u weheliyaa booliiska federaalka ah ee ku sugan gobolka naftirkiisa inaan soo ogaano xaaladooda sida ay tahay iyo arrintii kale ugu muhiimsan maanta Soomaalidan ay naga dhowrayso oo ah sidii doorashooyinka la filayo inay bisha soo socdo ay qabsoomaan u qabsoomaan si xasilooni maadaama aan ahay madaxa guddiga qaran ee loo xilsaaray arrimaha doorashooyinka xagga amniga marka runtii farxad weyn ayay ii tahay waxaan ku soconaa waqti aad u ballaaran cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo dhankiisa la hadlay warfidiyeenka ayaa ka hadlay xiisad maalmihii la soo dhaafay ka jirtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyo sidoo kale heshiis uu sheegay in la soo gaareen dowladda Mareykanka taas oo ku aadan duqeyntii dhawaan diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen bariga gobolka Mudug dabcan aniga safar gaaban ayaa waxaan ku tagay magaalada Muqdisho ujeedada safarkeygana waxay ahayd inaan halkaa kula soo kulmo wafdi dowladda Mareykanka ka socday arrimihii ku saabsanaa duqeyntii 28 bisha ka dhacday magaalada Gaalkacyo runtii wada hadal dheer oo aan galnay wafdigaas isfaham iyo isku soo dhawaasho aad u badan ayaan arrintaa ka yeelanay iyo inaysan mar dambana dhicin wada shaqayn rasmi ahna ay maaragtay labada dhinac ay yeeshaan arrinta ayada marka si guul ah ku soo dhamaatay si isfaham ku soo dhamaatay anoo munaasabadan ka faa'iideysanayo waxaan runtii aad iyo aad uga xumahay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo anigu uma arko inay Gaalkacyo dagaal dambe u baahan tahay Gaalkacyo waa magaalada kaliya Soomaaliyeed ee kala qaybsan waa ayaan daro runtii anagu haddaan galmudugna raali kama nihin kala qaybsanaanta magaalada waxaan rabnaa magaaladaasi in hal gacan iyo hal maamul ay gasho maxamed maxamuud awaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado